kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 29 bishii toddobaad 2021 wararkana maanta Bolis Media idinku haynana waxa kamid ah sarkaal boolis ah oo isku dilay magaalada Karyaaga ee dalka Kenya xildhibaanadii ugu horeeyay ee aqalka sare oo la doortay barakaca ka socda gobolada Amhara iyo Tigray ee dalka Itoobiya daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan sarkaal boolis ah oo ka howlgalay gegada caalamiga ah ee diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa lagu soo waramayaa inuu isku daldalay gurigiisa oo ku yaalo Kaguyo ee ismaamulka Karyaaga taliyaha booliska ee deegaanka goboleedka Maua ismaamulkaasi Stephen Okola oo dhacdadani xaqiijiyay ayaa sheegay in sarkaalka oo lagu magacaabi jiray Donfon Wanyagu oo isku dilay gudaha gurigiisa mid ka mid ah dadka deegaanka isla markaana ah baro dugsi hoose dhexe ayaa sheegay in sarkaalka iyo isaga ay saaxiibo dhow ahaayeen wuxuu intaasi ku daray inay soo wacday xaaska sarkaalka isla markaana ay u sheegtay inuu isdilay sida laga soo xigtay xubnaha qoyska gaar ahaan sodohdiisa ayaa sheegtay in ka hor inta uusan sarkaalka iskharijin uu qoray warqad uu kaga codsanayo xaaskiisa inay siiso telefoonkiisa gacanta wiilka uu dhalay meydka ayaa la geeyay goobta midadka la dhigo ee Kibugi isla markaana baaritaano lagu sameyn doono xubnihii ugu horeeyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay Jubbaland iyadoo ay bilaabatay doorashada Soomaaliya kadib dhowr mar oo ay dib u dhacday kursigii ugu horeeyay waxaa helay Ilyas Badal Gaboose oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose wuxuuna ku guuleystay 55 cod halka Maxamed Axmed Siid oo la tartamay uu helay 17 cod guud ahaan waxaa codeeyay 73 cod iyadoo hal codi uu xumaaday sidoo kale senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag ayaa ku guuleystay kursiga labaad ee aqalka sare Farataag ayaa helay 71 cod oo gacan taag ah kadib markii sida la sheegay uu tanaasulay Axmed Maxamed Jaamac oo la tartami lahaa waxaana ka aamusay laba xildhibaan oo kaliya sidoo kale Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan ayaa noqday musharax ku soo baxay kursiga saddexaad ee golaha aqalka sare ee maanta la doortay Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan ayaa helay 59 cod waxa uuna ka guuleystay Xaliimo Jaamac Maxamed oo iyaduna heshay 12 cod waxaa xumaaday hal cod oo kaliya kursiga afraad ayaa waxaa ku guuleystay Iftiin Xasan Imaan Baasto oo loogu codeeyay hab gacan taag ah kadib markii uu tanaasulay Ibraahim Yacquub oo la tartamay ilaa iyo 5,000 oo qaxooti Itoobiyaan ah ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka gudbaan xadka Suudaan sida uu sarkaal ka tirsan dawladda Suudaan u sheegay wakaaladda wararka ee AFP tani ayaa ah mowjadii ugu dambeysay ee dadka iskaga cararaya colaadda ka socota gobolka Tigray iyo Amhara ee dalka Itoobiya kuwaasi oo ka sii daray toddobaadyadii tagay horaantii toddobaadkan ayaa waxaa dadka ka gudbay ilaa iyo 3,000 oo qaxooti Itoobiyaan ah taasi oo tirada qaxootiga reer Itoobiya ee ku sugan Suudaan ka dhigaysa ku dhawaad ilaa iyo 60,000 oo qof sarkaal u hadlay dawladda Suudaan ayaa sheegay in roobab mahigaan ah oo ku daay xuduudka ay sababeen in wabiga mara xadka kala qeybiya labada dal uu fataho halkaasina 3 qof oo Itoobiyaan ah oo isku day in ay u gudbaan dhanka Suudaan ku qaribmeen dagaalka ka socda gobolka Tigray waxaa ku dhintay 10 qof iyadoo 400,000 oo qofna uu ku riixay gaajo daawadayaal wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idin akhrinaya anigu Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar inta barnaamijka mid lamid ah inay ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah